السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوغي الميل والبؤود جوكتان قضبضا آد ورركنا كمغلي دونتان وحاكمدا جمعدا تي بي لفا ايا وحاي شكتين ولكي اغبضنا دولة فدرالكا إنك قبصتي سيدا ونقصها بدنا مقالوين آد واوين ودالكا إيتوبيا كمدا إنك قبصاني دونتون iyadoo la filayay dawladda federaalka howlgalladii ay ku yabooday iyo ciidamadii difaaca qaranka ee la rajeynaya sida ugu dhaqsaha badan TPLF inay soo afjaraan ama TPLF jugweyn dhanka soo waqsan karin lagiyo ka xoreynta gobolka Axmarada ayaa waxaad moodaa TPLF inay dib u soo karar qaadatay sidoo kale hoggaanka TPLF ayaa waxa uu sheegay gabi ahaanba inay burburiyeen difaacii dalka Itoobiya dawladda federaalka Itoobiyana waxa ay meesha ku jilayso inuu ruwaad iyo cajal shacabka loo daaraya yahay qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah xisbiyadii ugu badnaa ee ka tirsan dawladdeegaanka Axmarada ama xisbiyada mucaaradka ee inta badan fikradoodu ay shaqayso ayaa waxay sheegeen dawladda federaalka Itoobiya inay xagal daacisay dagaalkii lagu wada jiray TPLF qowmiyadda Axmaradana in shirqoolkii abid ugu weyna loo dhigay inay ka soo waqsanaynin ayagoo sheegay inay ciidamadii ugu badnaa qowmiyadda Oromada ka soo jeeda waa jabhadda Ole in lagu arkay iyadoo ka howlgalaysa gobolka Axmarada ayadoo la garanin jabhaddaasi meesha ay ka soo talowday iyo qaabka ay gobolka Axmarada ku soo gashay sidoo kale madaxweynaha dawladdeegaanka Soomaalida shanta sano ee soo socota si xukumi doona ayaa loo doortay Mustafa Maxamed Umar qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 18 bisha 10 2022 haddaynu u guda galo wararkeennii oo faahfaahsan gobolka Axmarada ayaa laga soo sheegayaa abid dagaalkii ugu xumaa u dhaxeeya dawladda federaalka Itoobiya iyo ciidamada TDF ciidamada TDF ayaa maalinnimadii shalay ilaa xalay ilaa maanta waxay howlgalladii ugu cusla ka wadaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Axmarada dhulka ka agdhow ayadoo hubka noocyadiisa kala duwan iyo daryaanka laga maqlayay gobolka Axmarada gobolka Axmarada wali waxa ka socda duqeymaha ay wadaan ciidamada dawladda federaalka taageeraya iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyo wadanayti dawladda federaalka siinaya garabka hase yeeshee TPLF ayaa waxaad moodaa gabi ahaanba in ay burbursay ciidamada qaranka ayadoo qowmiyadda Axmaradu ay aad ugu dhaliilaysa ciidamada federaalka dagaalka ay TPLF kula jiraan sababta keentay in ciidanka federaalku ka guuleysan waayaan militariga dalka Itoobiya inuu ka guuleysan waayo TPLF ayaa la garan lahayahay difaaca meesha ay ka geentay maadaama ciidamada federaalku hubkii ugu cuslaya wadeen TPLF maalinba maalinka ka dambaysa gacanta u galayo taliyaasha hogaaminaya ciidamada TPLF ayaa waxay sheegeen wax ay TPLF ka walwasha ama ay ka cabsataba welineen araga wax kasta oo TPLF loola yimaadana inay TPLF mar walba ayadu ay ka sarreyso oo ay kana sarreyso TPLF ayaa dagaalka ugu cuslaa waxay ka wad gobolka Axmarada ayaa waxa uu noqday hoygii dagaalada ayaa halkaas u yaraa 2 milyan oo qof ay ka barakacday TPLF ayaa waxay sheegtay inay kala qabsatay magaalooyinka waaweyn ee kala sida Wajaale iyo Waletana TPLF ayaa waxay sheegtay sida ugu dhaqsaha badan inay soo bandhigi doonto khasaare ay gaartay dawladda federaalka ama dhulkii ballaarnaa ay ka qabsatay dawladda federaalka Itoobiya nin taliyo ciidamada TPLF u hadlaya ayaa uu sheegay abid khasaare ugu badnaa inay gaarteen ciidamada federaalka hub ay TPLF ku sii dagaalami karta ama dalweynaha Itoobiya ay ku qabsan kartaan gacanteeda inuu galay dagaalka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo TPLF ayaa maalinba maalinka ka sii dambaysa kor u kacaya dawladda federaalka Itoobiya ayaa maalmihii ugu dambeysay waxay ku dhawaaqday howlgalkii abid ugu cuslaa ayagoo sheegtay inay heshay kaalmo dhaqaale iyo kaalmo ciidan oo ka heshay wadamada taageera dawladda federaalka Itoobiya ayadoo ay warbaahinta madaxa banaana maalihii ugu dambeysay ay sheegaysay inay TPLF aad loo duqeeyo diyaaradaha droniska oo dalal kala duwan oo caalamka laga leeyahay TPLF dagaalka ugu xumaa ku qaadeen hase yeeshee halka uu dagaalku malayo iyo xaaladda hadda sida ay tahay ayaa la garanayn meesha ay ku dambeyn doonto TPLF ayaa waxaad moodaa wadamo qarsoon inay hoose ka hubeynayaan ayadoo la sheegay inay la soo baxay TPLF istiraatiijiyadii abid ugu cuslayd ayadoo la sheegay inay ciidamadii ugu badan ayadoo la sheegay ciidamadii ugu badnaa ee qowmiyadda Tigrayga oo TPLF u tallaabay TPLF garab siinaya in laga arkay gobolka Axmarada ayaa waxa uu noqday hoyga dagaalka
hase yeeshee qoomiyadda axmaaradu inta badan maynu ku baraarugsaneen dagaalkani sida uu noqon doono, lamana filayno dagaalkani inuu noqon doono dagaal saa usii daba dheeraada TPLFna ay kusii sugnaanayso gobolka axmaarada. sidoo kale hogaanka TPLF ayaa waxa uu sheegay inay gebi ahaanba burburiyeen difaacii dowladda federaalka ama ciidamadii federaalka Ethiopia ee ahaan jiray quwadda qaaradani Afrika. hogaanka TPLF ayaa waxa uu sheegay ciidamadii soo weeraray ee diyaaradaha dalalka sheelagana adeegsanayay inay gebi ahaanba wax ay dhulka soo dhigeen iyo wax meeshii ay ka yimaadeen ku laabta ay noqdeen. TPLFna difaacii ugu adka ay kaga jirto dhulka axmaarada, halkaasna ay kasii wadi doonto maalmaha ugu dambeeyana in la TPLF dhulka Ethiopia oo dhan qabsani doonto. ninka TPLF waaye madaxa TPLF isku tilmaamay ayaa waxa uu sheegay inay TPLF dalkaweynaha Ethiopia gacanta ku dhigto inuu wax ka hortaagan ma jirna ay TPLF jaalis inaysan ragga ay ku sheegtay mafakirayaasha waa ulajeedadu waxaa ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo xukuumaddiisa. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xisbiyada mucaaradka qoomiyadda axmaarada ayaa gebi ahaanba waxay ka soo horjeesadeen dagaalka ay dowladdu kula jirta TPLF, ayagoo sheegay dagaalkaasi dowladda federaalka Ethiopia inayna daacad ka ahayn oo shirqool yahay loo dhigay qoomiyadda axmaarada. ayagaa waxay sheegeen in qoomiyadda axmaarada dakanan weyn loo soo sheegayo ama dakanan weyn looga soo jiidayo qoomiyadaha dariska lahaa. xisbiyada mucaaradka ayaa waxay sheegeen marna ma dhici karto inay ciidanka federaalka dowladda Ethiopia ama ciidamadii waxaasoo kharasha lagu soo bixiyay waxaasoo taakulanaya intaasoo tababara lasoo siiyey in ay TPLF la dagaalami lahayn ama markasta ay TPLF ka soo cararayaan macquul ma aha ee dowladda federaalka ayaa ka dambaysa shirqooladaasi. mucaaradka ayaa waxay sheegeen inay dowladda federaalka Ethiopia ay qoomiyadda axmaarada bahdilaad weyn ku wado, dagaalkana uu yahay dagaal qoomiyadda axmaarada lagu bahdilayo oo qabkeeda iyo jiritaankeeda lagu baabi'inayo. xisbiyada mucaaradka ayaa waxay ugu baaqeen xukuumadda ka tirsan qoomiyadda axmaarada ama madaxweynaha qoomiyadda axmaarada inuu siyaasadani wax ka bedelo una soo jeesado dalkiisa si uu xoreyn lahaa TPLFna ugu xoreyn lahaa. macquul lama ay dhan TPLF maanta inay maalin walba maalinka ka dambaysa dhulka si weyn sii qabsanayso, dagaalkuna cirka isku sii shareerayo maalin kasta. sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa mar labaad 5 sano loogu doortay inuu sii hogaamiyo dhulka Soomaalida ama dowlad deegaanka Soomaalida. Mustafa Maxamed Cumar oo deegaanka Soomaalida doorasho ka qabtay 30kii bishii aynu soo dhaafnay, doorashadaasoo in badan dib u dhacday dalka Ethiopia doorashooyinkii hore ka dhacday ka hadhay ayaa hadda waxaad moodaa in la soo gabagabeeyay iyadoo madaxweynaha iyo xukuumaddiisaba maanta lagu soo dhisay magaalada Jigjiga. Mustafa Maxamed Cumar ayaa ugu yaraan 3 sano deegaanka Soomaalida soo hogaaminaya isagoo maantana mar labaad dib u hantay kursigiisii. Mustafa Maxamed Cumar ayaa markii hore waxa uu ku yimid isbedelkii ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida 2018 ayaa mudaharaadyo waaweyn oo khasaare iyo dhimasho badan geysay ayaa ka dhacay dowlad deegaanka Soomaalida khaasatan magaalada Jigjiga, halkaas oo kursigiisii ku waayay madaxweynaha Korea waa Cabdi Maxamuud Cumar. kadibna isla 12kii bisha 8 ayaa waxay Mustafa Maxamed Cumar asagoo 4 bishii September xukuumaddiisa halka ku soo dhisay 3 sano dalka sii maamuleysay. Mustafa Maxamed Cumar ayaa looga baahan yahay hadda dalka ama deegaanka Soomaalida inuu sii hogaamiyo dowlad iyo cadaaladnimo ku maamulo. Mustafa ayaa la soo sheegay xukuumaddiisa islaam maantadanba inuu shaaciyay ayadoo weli wax ka hor imaadsha ama wax dhaleecayna ayna uga imanin deegaanka Soomaalida. wixii gadaal ka soo kordhan halkan baan idinku soo gudbinaynaa. tan iyo kulanti dambe wacan. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.